حيسين أو سمينه ما دام قف يوتيوبر مسلم تاتو معكم هذه مسلم تاتو محايل ممنوع جانسو فايتا إنه هذا الكلمة si loo fiiriyo in muuqaalka asaga ah ee ay ka tirtirayaan waayo waxaan aad mudan aad iyo aad runtii in lagu daydo ay mudan tahay boqolkiiba boqol aan dhaho dhammaantiin runtii leeyahay wuxuu u sheegaa in uu leeyahay camal xalaan dhan waa cawro marka laga reebo shantaada farood aydan ay leedahay anaa jirkayga iska leh qabri ma ilgalaysiin aakharo ininka ma god ilgalaya waxyaabo noocaas camal ay god ku asxaabta waxa ka codsanaya intayna barnaamijka aynaan bilaabin waa in aad subscribe-ka dac ay kaga siisaan haddii kale السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا معلم channel أصحابتا عصوان صو دوينا كو هرور جوغنا وكو مهتين جوغتان كينا كون إيكوجر إن دبعا وحصاركتين قلن يردن صوماليات إدقن مليشيا غارهان كولامبور أو تقان أمانتو دا مقاعدو دا إن مركا وحا إسو جيتي أي وحي تهاي سيدي أي رونتي أولا دقمين قبدن صوماليات أو ولا شودا طبعا تاني وحي جواب عاد وطهاي إن رنتي يعني إن بدن إل داري شيء جري لديه جري وقبلها وي عيان وي ظلميان وحي جعليهن عيبتودا وحي جعلي إن بنانك كينان فحش جودا إن تاني وحي كلا جواب وطهاي إن دتك حن يدتك في عن أي رنتي كو في عن بديهن أنت بدن وحي كلا جواب عاد وطهاي إن شنت فرات لا يسوء سمين رنتي dadka oo dhan wada siman waayo waxaan arkaynay gabadha dabcan waxay ku sameeyay rabtay prank ayaka laakiin prank ayaka prank ku sameeyay rabtay wiil saddexdooda ma ogeyn markaas u fiirisay waxaa runtii aad u xanaaqay yarka loo magaciisa king ciida ayaa aad u carooday waxaa kaloo aad u carooday wiil kaloo gees soo jeedo alpha yarka dhaxda ku jira asagana ibraka darba ma allah magaciisa dhan hadan si waa iga hal noqda naftiisa waxaa moodaa in uu runtii dareen walaalnimo dareen Soomaalnimo dareen runtii uu ka naxayo gabadh walaashiis ah oo cooradeeda halaha bis inuu arko am banaanka ay keento ay runtii aad u xanaaqay waxaa kaloo runtii soo jiitay sida ay ula hadleen saddexdoodaba ay isogeen ay waxay ka bixiyeen hal jawaab oo cad oo ay leeyihiin gabadha tahay gabadh Soomaaliyeed tahay is astur dabcan waxay u sheegaysay inay xayisiin sameynayso xayisiinta sameynaysan ay rabto inay gacanteeda ku qorto something like that laakiin waxaa moodaa inay saxeen ay isku dayeen inay bal dhan wanaagsan wax u sameeyso amal ay runtii kula taliyeen taasina waxay runtii jawaab cad u tahay gabdhaha Soomaaliyeed waxay tirtiraysaa fikirka xumaa ee laga aaminsanaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada hadda soo kacay andhaho oo inta badan maalmihii uga dambeeyay ama marba xamaqan janno on wiil Soomaaliyeed ee gabadh xumeeyay wiil Soomaaliyeed ayaa runtii gabadh kala walaashiis ah Soomaaliyeed سحن أول رقمي وحياة ولا مدة لكن هذا إن وحمودا معناها مركز سلو فيريو إن مقالك أسرع أي كتير تريان وايو إن حد ولا دعي إن رنتي قبل نفترض أي برانك سمينيسي رنتي لكن برانك نوعنا كلا ولو أي سونا سنين إن رنتي أي معناها يركين عيد اللي أو شيء إن وليه عمل إن حلان نوع عورو مركز غيره وشنت هذا فرض أيضاً إلى هاي أنا جركي إسكاله قبل ما الجليسين آخر إنك ما جود الجلاء وحياة نوع عمل جود وكل هذا الشيء. وكعمود حناقة أي كنتي أقادين إنه وهامت أو إكسكتين إنه ماشي كعان مكسو في ريسيت لكن وقدام بين عيدا واحد له سواء إنه عيال برانجل وسمينا هاي لكن قبل جد مكسو في ريسيت كعرض وين كحناقين. فرينتي ذو حتى هاي إن كنتي ضدك سهراء وشيء سد الشنطة فرد لا أسمين aysan u sineen laga helayo mid xun mid fiican sida gabdhaha Soomaaliyeed loo helayo dhamaantood kuwa xun iyo kuwa fiican inta aan dhaho waxaan daawan doonaa video dhameystiran waxaan huwa in videogan runtii aad keli doontaan قرآن قرآن حيسين أو سمينه ما دام قف يوتيوبر مسلم تاتو معكم هذه مسلم تاتو محايل ممنوع جانسو فايتا إنه هذا الكلمة جارايو إن أو مجلس أو ينادك كذا أي قناة أي difference وحاول بدني كجيران فانت كسؤال شيء هو step by step سؤالك كده بيبقى social media اللي عبص يعني يا أنا والله واحد شيء والله برنامج سعنا اللي يمكن اللي فيها my brother إيه برنامج سعنا اللي يقول له ولا شو Soomaaliyeed ogaadaan in ay jiraan wiilal kuwan oo kala ah inay jiraan rag Soomaaliyeed oo runtii
oo kan dhaqanayo xumaantooda neceb oo aan jecleen inay arkaan gabdho kale oo ayaka gabdho kale Soomaaliyeed oo runtii ceebtooda banaanka lagu hayo markaas u fiirisid dabcan wiilashan oo wiil caan ah oo runtii aad loo aqaano oo kamid ah team 27 aan dhaho astixaajo groupkiisa waxaa moodaa inay yihiin dhalinyaro isku xiran tarbiyadsan aan ku xadgudbin gabdhaha waalada ah waxaana runtii kamid tahay guulaha waaweyn ee runtii gaareen dhanka social media marka laga fiiriyo sanadii ugu dambeysay aan dhaho dadka aad loo xiiseeyo oo kacsan inay ay yihiin ayaa hubaa dabcan way jiraan kuwa kale oo ay ka mid ah oo social media caanka ah oo daafaha adduunka la joogo laakiin arrintan ay runtii markii labaad aan arkay in dhalinyaradan oo runtii u dhaqanayo gabdho ama gabar Soomaaliyeed oo walaashood ah oo aan jecleen in runtii xumaantadeeda ay banaanka imaato ama runtii cawradeeda la arko aan dhaho intaba hadda ka hor hataa waxaan arkay ayagoo dhahayo gabadh waayo Sam Show qof ayaa wuxuu rabay in ma xasuusto YouTube ku ahaa laakiin waqti saa u fog ma ahayn dabcan waxaa la rabay in gabadh soo socoto wax baraan camal lagu sameeyo qof ay kamid ah wiil hadda ka maqan oo magaciisa la dhaho Abera ayaa wuxuu dhahay nimiyada gabdhaashan ah Soomaaliyeed oo nagu cusub mana taqaano mana kaftan taqaano haddii ta qofna ka saay camal haa ku sameyn lahaynay laakiin wax kasta imaan ka dhalan karo iyo naga cararin aan soo dhaweyno arrintan naga daaya marka waxaa moodaa ugu dambeyn ismaqleen ixtiraam noocaas camal dhaxooda inuu ka dhaxeeyo ayaan aaminsanahay tii ayad anoo ku amaanayo ay haddana middan arkay maasha Allah waa mid nagu cusub aan dhaho marka loo fiiriyo kuwii xumaatada sameyn jiray waana wax ku deesho mudan aad iyo aad runtii in lagu daydo ay mudan tahay 100% aan dhaho dhammaantiin runtii waxaan filayaa inaad ka heli doontaan wiilashan xaggayga waxay ka mid yihiin ammaan saddexdooda dabcan gabadh nafteeda ammaan ay mudan tahay inkastoo ay yara taxaraxday aan dhaho markaas u fiirisid laakiin waxaan filaa inay qaadan doonto talada nafteeda way ogeed in wiilashan waxaan ay laqi kariyeen markaas u fiirisid waxay ahayd qof kalsoon og inay arrintan ka xumaanayaan waayo macnaha video hordhiciisa I mean marka title ka fiirisid videoga iyo waxa gudaha ku jira waxaa moodaa in iswaafaqayaan waxay ahayd qof og in arrintan ay ka xumaanayaan wiilasha 100% aan dhaho waxay isdhehayso on ku fiiri camalka actionkooda laakiin ugu dambeyn way ogaatay taasina waxay micnaheeda tahay inay kalsooni ku qabi doonto 100% hadda ka dambeeyo bulshada Soomaaliya u soo bandhigtay wiilashan waxay gudaan iyo waxay yihiin inta aan dhaho saacad videogaas la wadaagi rabay aadam ka maqashin salaada tukada channelka ku cusubtaan subscribe